shirkadda biyaha ee Galwa ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay soo bandhigtay waxqabadkeedii muddadii ay jirtay. Waxaana ka qayb galay xafladii ay ku soo bandhigaysay oo lagu qabtay Hotel Al Jazeera ee magaalada Gaalkacyo. Suuliyiinta kala duwan ee gobolka Mudug iyo degmada Gaalkacyo. Intaasi ayaa waxa ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug duqa degmada Gaalkacyo, Maariya ku-xigeenka wakaalada biyaha Puntland ee Baasaweyn, gudoomiyaha wakaalada biyaha ee gobolka Mudug, Saamileyda iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana halkaasi hadal ka jeediyay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay qaar ka mid ah. xafladdan iyo shirkan waxaa soo qaban qaabisay shirkadda biyaha Gaalkacyo Galwa. ujeedka shirkan ee aan u qabanay shirkadda biyaha waa la yaqaanaa, magaalada macruuf weeye, shirkadaha weyn bay ku jirtaa sida sheekhu uu sheegayo oo adeega joogtada bixiya. shirkan marka ujeedkiisu waxa weeye boorkaas ku cad yahay soo bandhigidda waxqabadka shirkadda biyaha Gaalkacyo Galwa, bal in bulshada la wadaago shirkadda Sheekh Maxamed Abu Faarax فيتفضل مشكورا. شركتان markii la asaasay saad la socotaanba dagaal baa ku bilowday 5 sano biyaha la jaray. Anana aan subaxii ka beynay 4 meelood markaantaad ka tihiin 5 sano baa biyaha la jaray. Anana markii habeenkii 5 meelood laga jaro 6 meelood baan biyaha wada maynka ah yaan subaxii kamid hore kaga bilaabnay insan magaalada biyo ku waayin. 4 sano dagaalkaas ku socday waa u dhabaraadeegaynay 8 sano markay joogtay ilaa ay maanta bilaabatay dadkii shirkaddan asaasay dad badan baa ka cararay oo lacagtooda kala baxay. hadday soo madhay magaalada anaga waxaan loo aasaasay inaan biyo siino magaalada rafaadka aan soo maro biyo ku filan baanu siinaa. xagee kaga jidhaan qiimaha dadku qiimaha laga hadlaa qiimaha xagee kaga jira Puntland. shirkadaha degmooyinka biyaha shirkadaha Puntland qaar baa waxay gadaan $1.80 biyaha, qaar baa waxay gadaan $1.60. anagu $1.60 kuwa gadaan oo ugu hooseeyaan ka mid ku jira meelaha degmooyinka Puntland ka mid ah $240 lagu galiyaa biyaha u fiirsada halkaas. waan tusayna waan taabsiina wax jiro la wada og yahay weey $240 meel Puntland ka mid ah biyaha guriga lagu galiyaa annana $140 ma qaadna waa taan ku bilownay waa kala bar levelka uu hooseen kaga jira iyadana waxaan ogolahay wafti aan kharash ka bixino in meelba soo maraan degmooyinka soo maraan waxaan ka hadlayno qodob been haduu ku jiro hal eero been hadii laga helo dawladda saddex saldhigga booliska qaybta gobolka degmada kulli isbitaalka weyn biyihiisa oo aad ogtihiin inta oo 1,000 mitir kubis caba intuu baaxad leeg yahay biyihiis waa firi hadayna la qaataan iyagana talaa ugu soo jeedina hadda rag baa ka fadhiya waxaan isku daynaa inaan hawlgallo biyaha macaan hadaalin. isaguna waxaa halkaasi ka hadlay Cali Cabdi Maxamed oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda biyaha ee Galwa. wixii dhibaatooyin badan baa hadda jira oo aan rabno intiinaas inaan la kaashano oo runtii aan gobolka u joogno oo maaragtay jira oo biyaha wali ku socda hadduu gudoomiyuhu sheegay xilliga wali wax loo goyn jiray hadda goyna ma jirtay waxa jira shirkado kale oo raba inay asaasmaan oo si qeyr sharci raba inay asaasmaan waxana wuxuu weyn ay sharciyad ay ku dhisan yihiin Galwa dad ismeel isu yimi oo biyaan iska marooqsaday oo xoog ku haysta ma dadku insa in loo fahmaa la rabo intiina waa ogtihiin inta aan gaarsiinayno oo aan rabno in xogtan la yeenin mariyo waxa weey dadkaas weey annaguna aan rabno in aan la hadalno oo ay ka joojiyaan biyahan dhibta waxay ku wadaan shirkado qeyr sharci ah. shirkaddan mandate bay haysataa waqti bay leedahay biyaha magaalada iyaga ka mas'uul heshiiskay ka mid tahay inaan shirkad kale magaaladaas biyo gelin karin. Bashir Macallin Daahir oo agaasime ku-xigeenka wakaalada horumarinta biyaha ee Puntland ayaa uga hadlay shaqada aan gobolka u joogno waxa laf dhabar u ah odayaasha iyo cuqalada iyo culimaadoodinka iyo caqabad kasta oo ku iman karta wax jiray inay baaba'aan waxa ka hortag ku sameyn kara waa bulshada miideeda odayaasha waxaan ka rajaynaynaa insha Allah taala in ay nagala shaqeeyaan waxaan leenahay cid kasta oo ka qabta biyaha ama qiimigooda ama systemka ay u soo ama si kasta ay tahayba in ay diyaar aan u nahay inaanu talada qaadano. Maan Cali Taaris gudaha horumarinta wakaalada biyaha ee gobolka Mudug ayaa asaguna waxa uu ka hadlay waxqabadka shirkadda Galwa ee magaalada Gaalkacyo. shirkadda tan Galwa waa shaqeynaysa intii muddo waa garanaysaan waa ognahay waana wada joognay intii ay shaqeynaysay laakiin hadda annaga haddaan nahay bahda wakaalada horumarinta biyaha hawl waxa la oran jiray Baasaweyn waa la bedelay waxa loo bedelay wakaaladii hore ee biyaha Soomaaliya oo kale wixii dhaliilaa waa noo soo sheegi karaa anu isku duwa gobolkan hay wixii dad shacabku wax u soo dacwoon karaan Galwana hadii wax xalin weey aniga soo dacwoonto annaga gobolka u gudbinaya wixii baahiyo aan qabo aan ka qaban waay
duqa degmada gaalkacyo Saahid Maxamuud ayaa isaguna waxa uu ka hadlay waxqabadka iyo warbixinta ay soo bandhigtay shirkadda biyaha ee gaalkacyo ee Galwa. Waxaan soo dhaweynayaa ayadana ta'kiidinaya haddii duruufuhu saamixi karaan shidaalku mar buu raqiisaa marba waxyaalo badan isdhibaan in mararkaasna ay jabiyaan barayska. waxaan soo dhaweynayaa sida maanta oo kale ay sameeyeen inay sanadkiiba mar soo bandhigaan waxyaalaha ay soo siyaadiyeen iyo waxyaalaha ka nusqaamayntaba. gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiladiif Muuse Nuur ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. wax kasta oo bini aadan sameeyo mar walba waxba ka dhiman cabashana waa jiraysaa. waxqabadka iyo cabashadu waa wada socdaan. waxaana la rabaa mar kasta oo cabasha timaado inay waxqabad kordhiso oo ay idin kordhiso inaad wixii dadka aad ka ururiso cabasho ah aad development-igu uu ka sii batay intii hore. biyuhuna in gaalkacyo kaliya ku koobnaane aad tabartiina hadba intii kala gaartay aad wadanka ku leeyahay biyo gelin ku sameeysan. Maxamed Cabdi warbaahinta dawladda Puntland gaalkacyo.